أيها الإخوة، وحو خطبتك سابسينها حياة البرزخ نولش تنكو حكتو وقدكو صاحبك هدي لغا قولو نولشان نولل كلا لو قد بايا لو يراه حياة البرزخ قفك بين آدنك أفر حياة وصومنا نولش كو وحوي بطن الأم وي على شهويد وي هدي لغا صبح وحاكو حيغو حياة الدنيا تنهدى أنجوك نوي وحاكو حيغو حياة البرزخ تيس دحاد وي حياة الآخرة كحكتو لا نهاية فيه هذا تي لبعضها كجرا تي سدحد تي أفراد دم وحنا وصل صعدوي هذا موضوع وحوي نلشان أدونك نلش كحكتو وحوي آخر أنت هالجارين حياة البرزق قليلة أدونك يقولوا رسية ماركي سدو تذكر أنت آذين تيكو جيران تيكو نوليين قدك كجرا قدك نولشاس قفل بو مرامر نولشاس مركا نولشان كحكتو أفر أريمودا كسو مريس أفرتيو كهر لا يخطب نولشان مركا لقى تجايو أو لقى انتقالايو أو لقى كالجورايو أو نولشا آخر لآذايو كم حرنا إن أتقبل سومرت إن لقى آسو أو قد لقى قليو أو دتكايو كسو آسان قرابة هذه نولشا كم حر انت قفان لا آسين دتقار كيسي وحيكون إنتان بده يكون منعن ما لقى أجيه ملا آسين حياة البرزخ مش سيجين ومرالي dadka qaarkii waa gubteen iyaga gubteen oo bambas oo kala noqdeen qof nooca uu dhintaa waa ogtihiin qofha wuxuu ku dhimanaa baxayaato aan meel uu ka baxla ma oga sidii loo waayba qof baqaaba ugu taga adduunkan oo noloshiisa ay ku soo idlaanaysaa marka kuma xirna in qofkan la aaso oo godkaas la geliyo macnaheedu ma aha xayaatada oo godka qofkaas la maray ma aha maadaama ay sidaa tahay goormay bilaabane waxay bilaabane mar alla markii nafta ay ka baxday ku bilaab mujarrad an tamut dimashadaada ku xiranta in lagu aasim ku xirna wiligeed yaa lagu aasan hadii la rabo xayaatul barzakh wa min waraa'ihim ilaahay quraanku sheegay markii sidoo barzakhun ila yawmi yub'athun ay shak mu ku jirto marka oo baraatika ba oo hayna maxaa maalin walba dadaas oo aasana mahno anagana wiil adduunkan joognaa nolol marka oo tii jannada inaarka ka horeysa inay jirto meeshay ku cadda afar arimaa kuma soo marayso arinta ugu horeysa waxa weeye dajcal yira waxa weeye qaabka ruuxu uu kaaga baxay weey wax hadda ka daboolana ku furmaaya hadda arkeenin oo nusuusta ay ka hadleen ilaahay iyo rasuulkiisa ay ka hadleen yawma yarawna al malaa'ika la bushra yawma idhil lil mujrimin inda hada ku arkay amaama aynayk malaa'ika hadda waa maqalna laakiin ma arkin say ogtahay ma ognihi adoomi ilaahay baariyaal ah laakiin inda hada saare nolosha marka ka tagribtid inda saare qaabkaas ay markaa saarto qaabka ruuxdaada ay u tagayaan ee ruuxdaada u baxayaan ay cirka la aadayaan waa arkay waa dhowre qofka ma arkino markuu dhimanayo indhiis koreysay jiraan khalaas markii oo wala la soo noqona dadkii xambaaraya ragiya xambaaraya hadii qofka mu'min uu yahay markii nafta ay ka bixisay baaba loo bishaareeyay qadimuni dajiya intii ragga garabka ay ku sidaan buu bileeyahay ay daahinina qofka mu'min hadduu maxay markii nafta laga qaaday wuxuu indhaha saaray malaa'ik cad oo iftiin badan oo kafin janna laga soo qaaday ku sida bishaaro arkay marxaladaas ku way qof walban waa soo maray marxalada ku xigta waxa weeye damma way markii lagu qaado ragga ay ku xambaaraan godaa lagu geynaa godkaas soo dhaweynaa jirta marka oo macna lagu tala galay xaalad adaga galay marka damma waxa weeye isku ciriirin weeye in feerahaada iyo qabriga la isku ka keeno oo lagu ciriiriyo meesha waa arin ilaahay qadaray weeye oo la xukumay weeye laakiin qofaan mu'min ahayn waa lagu adkeynaa kaas laakiin mu'miniinta ma lagu adkeynaa qofka badbaadayna ma lahan mu'min iyo munaafiq kulli waa mara damadaas laakiin dadku waa u kala khafiifsan tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri law salima minha ahad wax ka badbaadaya ciriiriga ama majijinta oo lagu majijinayo qabriga wax ka badbaadaya haduu jiro Sa'd ibn Mu'aad ayaa ka badbaadi lahaa buu jiro Sa'd ibn Mu'aad nin awliya Allah ahaa waa ogtihiin markuu dhimahay ayaa arshiga ilaahay luxday naxtin uu ka qabo laajliga ilaahay agtiisa qiimo kale oo ah waana gobol dhac weeye ama hordhac weeye in qabriga lagu majijiyo waa hordhac oo culus oo waxaad mubaashar live as ku arki doontiin malaa'igaas kugu soo degi doonto godka oo munkar iyo nakiir liira oo ku fariisinayso oo ku soo fariisinay saddex su'aal ay ku weydiinay marxaladaas marka damma liiraha markii qabriga lagu ciriyo lagu soo fariisiyo saddexdaas su'aal lagu weydiinay ilaahay marka hadda qof mu'min tahay ilaahay quraanka wuxuu ku yiri yuthabbitu Allahu alladhina aamanu bil qawli thabit qofka haduu mu'min ilaaha sugay meel qariiba ku taamaysa qariib mataqana qof meel aan laga kasinin tagayaa liira qariibka adduunka wallahi qariib ma aha qof
qofku meeshaas ku jira qariib ah adduunka meel walba ka tagto bina aadam baad la kowsayay adi ala joogta in isla dhalanin hadii la doono laakiin jinsi aadana aqoonin iyo god iyo laba malaa'ik bis iyo adiga oo sadexiya qariib kaas ka weyn ma jirto laakiin hadda dadaasho acmaal suuban aad qaabato ilaaha garabkaagiya ilaaha ku sugay yuthabbitu Allahu alladheena aamanu qofka marka meeshaas la geliyay malaha dhaakir malaha wax xasuus malaha waa wareersan yahay ilaahay wuxuu xasuusii maahane su'aal inuu ka jawaabo maskaxba uma haye meesha uu ku jiro iyo waxa hor taaganaaba uu la wareersan yahay laakiin qofka hore u soo shaqaystay ilaahay wuxuu u balan qaaday inuu sugaayo isla markii rabbi allah leeyahay diini al-islaam nabiy muhammad horiyo ka sheegay allahi adduunka iyo aakhir iska lahaa oo aakhir ka taliyo oo godka ka taliyo oo adduunka nagu haayo asaa afku u gelinayo laakiin goorma way mataqaana ehel ina u naqatid way hadda inta la joog in la shaqaysto marxaladaas ku xigto marxalada saddexaad waxa weeye haddii aad gudubto lagu majiijiyo oo damadii aad gudubto su'aalihii lagu weydiiyo waxa kugu xiga su'aalihii waa ka jawaabtay Soomaha waa lagu bishaareeyay haddaad mu'min tahay waa adoo faraxsanaad fadhisaa oo meesha cidla ay kugu tahay munkar iyo nakiirna way ka tageen isla markii waxa soo degayeen qof oo qurux badan oo in la weheshto mudan yahay oo wajigiisa khayr ka muuqdo udgoon fara badan leh adiga waa dhiileed meel cidla qof hadaad ku aragto waad weheshan lahayd waa u tagi lahayd waa aadi lahayd godkaas wax qurux badan oo udgoon badan hadaad aragto maxaa sameeyay asaa ku bishaareeyay amalkaaga ahay buu leeyahay aniga adduunka hadaad joogtay salaadii aad dukanaysi salaatu leelki siyaamki hajki quraan akhriski weysadii acmaasha saalixada ee aad nafsadaada ku qasbaysayaan ahay buu leeyahay khalaas marxalada saddexaad saas weey hadii aad qof xun u yahayna wal ciyaadu billah nin xunaan kugu soo dagaaya oo ur badan oo aragtidiisa aanan fiicnayn oo wajigiisa shar ka muuqato wuxuu kugu bishaareynaa xumaan ana amaluka sayyi akule عماشي حميدة هذه قاعد سمين زندي أهاي مخدرات كيا أهاي تارك صلاة كيا أهاي فيلمدي أثيرسنة سيا أهاي وحي حما ودن أنا أحب له هذه مركب وشلاين محقق له وحان ما يدبك هذا أدونك هذه الجوا قروح بدن تأرنتاس لكن هذا عملك حماية أنا أحب له إلهي قرآنك وحكي ذلك بما قدمت يداك مرحلة أفراد وقدم بيس محوي ومن مراحل البرزخ نلش قدك أفر حاله وحالة وقدم بيس محوي هذه وصدق فنية أيها وحلو ليه هذا أهل إيمان آتها لنا عادة بدحدة فيري بالو ليه بدحدة هذا فيري مركز هذا وحاركه نارتي إسقراعيس وإسعيليس وإسعنيس هذا أركه وعبسها غفك فيخاف مركو عبسها اللي هي ماشاس مقام كاغا معها وعبسها مقام كاغا معها لكن لو عصيت الله هداد إلهي كعاسين هيد ماشاد آذنه مركز أنا انظر إلى يمينك نعم مديك تفيري جندي وأركامك وهدقا غفك ماشان على ذلك فرح درتي سبوحوا لي إله قيامها هدرت ربي أقيم الساعة جنة غف أركي مجوي كرا ما كجوي كرا هذا أنكو هاي له هدي بي ملاس لقوش مجوي كرتي قف جنة إن سارة وحور العين إن سارة وبياش إنها سارة مجوي كرا إله قيامها هدي إمرك أقول عود مع غفك سيا أقول الله تقولها أهلكي يا آخره هدي مرك قف حنوية هنا عكسي وي وحالا أهايا مديك تفيري كل كهرة مديك تفيرنا وحو أركا جندي وأركا وحو ملاينا إن ماشاس وسعد جنة وأركي وحنون وحنون جل حنون جناوي أنت الجنة أنت الله تسيال ليه هي ميا هذه ملهيد ماشان مرق سوما إلى هذه كداري جنة وأركا وفرحة مع أنه لا يجيب السؤال سؤال أسوك الجواب جنة أنت أركن كهرو من ربك وما دينك من نبيك كم الجواب ويري هذا نوا فرحة أنا وحلو فرحة وي وبهدل أما قلب الجب ماشي وجودا بيسوي مركي ومعنا وكفرحة وحي ماشان هذه معها أحبها كفرحة لو أنك أطعت الله أضد على إلهي أطيع إلهي إلهي وركي سمقل إلهي ماشان سوى قل إلهي وقلب الجب لقصيري ذا وي قفك إلهي قلبي كدلا والله وح قلبي هجاجي كرمتشر وقلبه وحهبون إن هد إلهي اسكو حرف فيري على وليه هيدنا عم بدحد فيري نارتي وأركامر نارتي مركو أركو وإسكراعيسو إسعيليسو إسعنيسو فيصيح وواقع وقيلنا مركاسو ليه مركو قيليا وحالو لها مكانك هذا مقامك لأنك عصيت الله إله قاتكو عاسيسي ميش هساقلي مركاسو عكسي وحولها ربي لا تقيم الساعة ياكي إلهي إله قيامها هذا هريدين ليه حياة البرزخ أيها الإخوة ساسوي أفرتاس مرحلة لمرة خوف البنواك ساسعتا خوف يري قبوين أنا قادنا إني سومري دتكي نجهوري إدنتي وامرين جاء لما ملي أودعين روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار قد كي لقلي لما مدوي
إن بيرها جنة كميت إنه نقضه أما قد كنار تكميت أو العياذ بالله إنه نقضه وحكى دحية ملك ما يخسنا كجري ملك آلاف السنين ملايين السنين ما كجري إلهي وحساب سنت أنت أدونك أكرق ما يوي أماشا كجري ما مدنا مركا عمرك سكير وأن بقل بقاريني إن أبيله سو ملايين السنين من عمري أدكسي جريسي إن أبيله سو عمري يرد أدونك جوجتو إن أضيعه نلاشي دميد أو أنت سنة أدقدك كجريس ووح كل جرنا أنا نجرين إن قد كاس نلاشي ساعات هذا سجل ليشو جعل أدون كان أو قبته واجبك إلهي كسائر هذا بيله سو ثنوا كتجي ذاتك وحوي ميل أو أن كتجينا إشكو مشغول هنا ماشي ولي جري لهيدنا ولا مشغولة أسوي وح إلهي كدجاي ذاتك غاركي مركا ولا عذاب القبر وحلي لها جرت ونصوص أيكو عدها إلهي وحير النار يعرضون عليها غدوا وعشية أيام القبر كار لأيدس نارتي الله بندقة صبحي قلبتي أدريش الله غفراي هاي معنى نوعية عذابك كمدة خفا وحلو عذاب لفيسي مقار كيسي شلنا برئه ألو شلينا ولقيت أبد الأبد إلا خفا من يسبح في بحار الدم يعني بدنا أوديك أكو دبالنا بيا ما ديك ما له ولا بكجرة ما كسب بحيس وهلو عذاب واحد لمشي ليها هنو مجرا لمشي تي هور ليوان نلاش أنا ديت لما تنلاش كده بس لمشي مجرته ولي قال ونولانه إلهي وحنا ساري حكم كيسو نصار إلهي أسجع وحنو حكومي سيدي أسجع صفات كيس خيب كمدة أو نو حكومي إلهي صفات كيس مع كمدة أبد الآبدين لا يموت نسلمنين إلهي تيو نصار أنا سيلوا أبور له ولي جاga هبل لأهاني هذه والله وحمد أنت يا أرنتاس ما دام هذا ولي جا لمنين نلاش باقي أو جريسو إن محلق قصة قاركود معنا نم كنومة عروس اللي سيد النصوص تعيش سيد عروس وكلا أصح تاسع الرواية كشقينا أيها الإخوة نلاش أو هذا تنقدم بيسم قارمي كو أكتهاي وحيكو أكتهاي عند النفقة الثانية سور كلابات مركل أفوف سور كواد أنت أدونك جوهرتها كل أمانة يا مكتها خلاص أدونك واحد جوجاي ماله إلهي كليا يا عالم أدونك نمكو هراي لمن الملك اليوم أي إلهي اللي أسأل اسكو جوابي وحكى له جوابي كرو أما النفر دقائق من جرته حياة البرزق مركا نفقة الكواد مركا دتك كوسل نفقة اللابات ودتك نمكو صباحين كو أكتهاي مركا أيها الإخوة نلاش أسامدن سيدي وناق نودا بيلها إنك شقين صلوا وسلموا على سيد البشر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تشاءون.